waa muuqaal macno badan soo koobaya. Ninkan afar waxyaabood ayaa halkan ku xiratay. 1 waa jahliga ama aqoon darida. 2 waa caajiska. 3 waa muqaadaraadka. 4 waa akhlaaq darada. haddaba afartaa dhibaato ee waaweyn si looga daaweeyo xorriyaddiisiina uu dib u helo, waxaa u yimid xalkii koowaad, waana cilmiga ama aqoonta. sida idiin muuqata, cilmiga ayaa furo jaabka kala soo baxay, wuxuuna ka furay jahliga ama aqoon darida. sidaa wuxuu ku helay aqoon uu intifaacsan karo. weli wuxuu u baahan yahay 3 dhibaato oo kale in laga furfuro oo xalkeedii la helo. hadda waxaa yimid xalkii labaad, waana jimicsiga ama cayaaraha. jimicsigii oo furihiisii wata ayaa markanna u tegaya, wuxuuna ka furfurayaa daciifnimadii ama caajiskii. weli ninku xor ma ahan oo waxaa ku dhiman 2 arrin oo dhibaatadeeda leh. haatanna eeg waxaa yimid xalkii saddexaad oo ordaya, waana go'aanka iyo joogtaynta. go'aankii wanaagsanaa ayaa furaha la soo baxay, xaggiisa ayuuna u tegay, wuxuuna ka furay dhibaatadii saddexaad, waana muqaadaraadka. jahligii, caajiskii iyo muqaadaraadkiiba haddii xal loo helay, weli waxaa ku harsan arrin aafo daran ah oo iyadana ay tahay in xal loo helo. hadda ayuu yimid dawadii ugu wanaagsan ee wax lagu xaliyo. xalkii ugu wanaagsanaa ayaa furihii la soo baxay, wuxuuna ka furay akhlaaq daradii oo sidoo kalena ah dhibaato beryahan dambe aad bulshada ugu soo dhex badatay. akhlaaq darada iyadana xalkeeda wuxuu noqday waa diinteenna suuban ee islaam, oo sidoo kalena ah xalka dhibaato walba looga daawoobo haddii sida ay tahay loogu dhaqmo. haddii aad doonaysid wax qalbiga nuuriya oo dhibaato walbana looga bogsado, waa kitaabka qur-aanka kariimka. isaga uun saaxiib ka dhiga ayuu leeyahay had iyo jeer, ninkiina waa uu ka ajiibayaa oo hab ayuu siinayaa. haddaba haddii aad ka heshay fikrad ay dhallinyaradan soo gudbiyeen, muuqaalka like inoo saar si uu dad badan u gaaro, siina gaarsii walaalaha aan ku baraarugsanayn oo sii sheer garay.